بسم الله الرحمن الرحيم ومر kale iyo cashar saddexaad oo ku saabsan Microsoft Word hadda computerkii waan dhex taagnahay desktopkii meeshii macni haddaan marka waxaan aadayaa Microsoft Word baan tegayaa marka waxaan halkan laga doortaa meeshan all programs ku jira inta badan hadda xagga tegaysaa waxaad raadinaysaa Microsoft Office oo dhan baa ku hoos jira Microsoft Office Microsoft Office ayuu ku dhex jiraa double click khaanadaas waa kuwan programada Microsoft Word ayaan marka ku dhufanaynaa waa kana hadda screenkii baan taagnahay Microsoft Word ayaa ii soo baxay marka waxaan rabaa marka casharadii hore aan qaadanay waxaan ku aragnay home-ka meeshaan default-ga meeshaan mar walba uu joogaa markaad soo gashid waa kuwan commandskii bold italic underline font-ga noocyadeeda meesha laga doorto by default halkaa kili gareeya waxaa ii soo baxaya Calibri iyo E11 inuu yahay marka adiga computerka waxaa laga yaabaa inuu mid kale ku dooran tahay size-kuna uu yahay mid kale usan kan ahayn macni default waxa la yiraahdaa wixii markaad gasho Word-ka computerka haddaan ka isticmaalin waxa laga yaabaa inaad meel kale inta tagto aad computer kale ka isticmaasho computerka kale waxa laga yaabaa font-gu inay 12 tahay size-kan ka wada font-ga nooceeduna ay tahay Verdana oo kale inay dooran tahay marka this is default uu noqonaya marka kana default noqonaya macni kan baad ugu imaanaysaa hadda markaad wax qorto this is the default font size and type kani waa size-ka farta dooran mar walba ee Word-ka la soo galo bogsiinaya soo maartid computer kasta wuxuu leeyahay settings ama default oo ah waxyaalaha mar walba loogu yimaado oo la furto programka Word oo kale tusaale ahaan waa bogsiye soo maartid marka waka boldigi italigii wixii aanu samaynay oo dhan waa kuwan waxaan kaloo baranay font paragraphiska this is for paragraphs halkan day paragraph ku qoran soo marka waxaan oo dhan waa paragraph uu saameynaya hadda kan qoraalkan aan qornay lefty way mar walba halka haddaan ku dhufto center buu tagay qoraalka center buu ka dhigay soo inkastoo qoraal badan yahay oo qoraalka aadka u badan center looguma talagelin u fiirso bilowgaan tagnay center baan ku dhufnay hadda wuxuu soo noqday bidix maadaama center laba jeer ku dhufto center buu tagay kan haddaan ku dhufto midigtu ka simay dhinaca midigtu aadaya soo xag buu u kala dheeraanayaa oo bidixda xag buu ka samaysan yahay qoraalka haddaan rabo inaan ku dardaro gadaal buu kaga biirayaa saas oo kale marka lefty way mar walba paragraph marka centerka badan waxa la sameeyaa qoraalka ciwaanka oo kale ayaa center la geeyaa hadda ku dhufo waka center uu kan noqday halkan marka waxaan niri hadda marka halkaasaan joogaa soo maartid waxba kama sareeyaan kor ma aadi karo qoraalka haddaan rabo inaan kor aado waa inaan enter iraahdo halka aan joogo enter bilowgaan geynayaa fiiri cursor-ku wuxuu ii joogaa meesha bahalka bilowga bilowgu ii joogaa qoraalka enter haddaan iraahdo qoraalkaas la soo degaya iyo wixii ka hoosay kulli hoos buu u riixayaa space baa marka soo baxaya bannaan okay space-ka hadda haddaan anoo jooga backspace keyboard-ka taabto backspace uu ku celinaya booskii macnihi backspace-kii hadda liftiga uu ka saaray okay center dheh hadda halkaa tago bilowga ama dhammaadka qoraalka aan tago oo markaa enter iraahdo maxaa dhacaya paragraph-ka hoose iyo qoraalkaas ayuu wuxuu u gelinayaa space gelinaya enter hadda ku dhuf waka space buu geliyay laakiin qoraalkii ma soo dhaqaaqin
sababtoo qoraalka dhammaadkiisaan taagnahay marka hoos un baad u jabayaa space kale sii gelinaya mar walba enter tiraahdo soo qoraalku wuu kala fogeynaya delete laba jeer ku dhufo spacekii baan cunay laakiin markaan rabo inaan kan hoos u dhaqaajiyo waa maxay bilowgiisaan tegaya bilowgaad adgeynaysa haddaad dhexdiisa dhigo maxaa dhacay halkaas hadda cursor-ki yaalla soo istuu saaran yahay haddaan enter ku dhufto maxaa dhacay qoraalku la jabayaa dee halkaa is wixii laga bilaabo ka horeeya ayuu la go-ayaa hoos la aadaya istii unbaa kor ku hartay soo marka always halkaa hadda space baa meeshaa dhex galay qoraal waa qoraal isleh inuu kala maqnaado lama rabo maxaa samaynaysaa marka meesha uu cursorku jooga hadda taabo dabeedna backspace taabo keyboardka balaarta dhinaca ujeeda interka korkiisa ku yaala wey waa ku dhufto soo centerka uu ka baabi'iyey mar labaad haddaan ku dhufto spaceki waa kaa spaceki wuu tirtiray waa soo noqday qoraalkii marka mar walba cursorka waxaan nidhi hubi meesha uu kuu joogo halkaa hadduu joogo hadda enter ku dhufto waa maxay de'da wixii ka horeeya wuu la go-aya hoos la aadaya this isna meesha uga tegaya marka si leenka oo dhan aad u goyso maxaa naga tag leenka oo dhan saa u goyso waxaan nidhi bilowgiisa tag markaa enter dheh very good leenka oo dhan hadda hoos usoo degi space baa kor kuuga haray space kor kuuga haray marka spaceki tag ama click gare ama mouseka ama waxaan leeyahay keyboardka falaarta kore ujeeda ku dhuf waka space hadda isoo baxay spaceka marka waxaa rabaan ku samayn karaa this is cinwaan cinwaanka qoraalka waa gashto qoraal baan gashto very good waa center you see so center baan joognay kii hore hoos dejinay centerkii wuu taagan yahay haddaan leenkaas hadda hoos usii dego spaceka haddaan hoos ugu dego waa kan still waa center haddaan hadda enter idhaahdo still waa center still center buu joogaa fiir halka meeshaan fiir still center buu taagan marka centerka waa inaan ka qaadaa lift idhaahdo markaasuu bidix kasoo bilaabo okay waxaan rabnaa hadda kan waan just waan tusaya uun waad garanaysaan hadda intaan waad garanaysaan bold italic waxaan odhan hadda boldiga oo kale daro inaan sameyno just highlight gare bold ku dhufo bold uu ka dhigay soo mar kale highlight gare hoos ka xariiq underline okay hoos ka xariiqaya qoraalkan hoose kana bold kama dhigayo waxaan ka dhigayaa italic back kuwaana waxaan u deynayaa leftigooda u deynayaa sidooda ku soconaya garanaysa bilowga hadda dhamaadka haddaa istaagto halka wuxuu ku dhamaado waxaan mouskan isticmaalaya ku keli gareeyay halkaas enter baan leeyahay enter okay halkan ka bilow new paragraph ingiliisana waa kan jooga paragraph halka ka bilow cusub enter qoraal kale sii wad saasaa ku soconaysaa okay marka hadda kan waan iska xiraynaa waxaan rabnaa inaan tuso laba documenti oo diyaarsan oo aan rabno inaan just bal eegno documenti sida noocyada kala duwan aad ku qoran kartid programka wordka aad ku qoran kartid xagee tegayna markaan wax furayno horta kan aan iska xirno kan ma save garayn soo maarta save nama oran waxa ma oran waa just waa iska tusyeer buu ahaa waan iska xiraynaa simply waxaan ku dhufanayaa halkaa x kan ku dhufanayaa maxaa dhacaya wuxuu leeyahay do you want to save the judge to document 1 because document 1 waa default okay default waxaan waxa isaga yimaado mar walba waad wordka gasho aad ku arkaysid way document 1 baa iskaga qoran meesha marka hadda maadaama qoraalkan iskaga baashaalayna aanan rabin inaanu save garayno waxaan leenahay no baan leenahay ha save garayn wuu ka baxay soo okay xagga tag waka wordki xataa dhowr jeer baan galay marka halkan isku yaallaa haddii kalena waxaan idhi waxaad tagtaa halkan programs programs tag Microsoft Office double click Microsoft click gare wordka tag markaa waa kana haddaan wordki baan imi okay laba document waan furayaa marka xagee ku furayaa waxaan tagayaa here kanaan ku dhufanayaa open markaan idhi wax yaroo khaanadaaba ii yaalla halkan habeenka dhowsaa waxa sida markaan bilaabaynay waxaan samaysanay ama sheegnay inay jirto khaanadii broward taasaan marka double click ku sameynaya qoraaladana igu jira waxaan tegayaa
documents buu igu sii dhex jiraa labadan way employment letter iyo letter for penalty okay employment letter ku dhufo waka way front wajida way front waa documenti diyaarsan for example waa documentiyada aad u isticmaali kartid wordka waxyaalaha practically aad u baahan tahay inaad u isticmaashay ka mid tahay for example waa company shirkad warqad buu qof u qoraya inuu qof confirmation of employment way whom it may concern datekii la qoray companyga addresskiisii wixiisii ciwaankiisii iyo qoraalkii waa kana qofkii saxiixay خلاص qofka loo qoray waka this is to confirm direct waa paragraph koowaad mid labaad oo hal line kaliya ka kooban saddexaad iyo ka afraad iyo xiritaanka meesha kind regards ama thank you ama wixii rabtaa ku soo xiraysaa garanaysaa qaabku u qoran yahay marka aad kala qaabku u qoran yahay fiir still qoraalku waa size ka farta hadda kan whom it may concern intee tahay haddaad dul istaagto waa 20 fontiguna waa calibri body caadi boldi ku jira ha boldi baa ku jira kan waa maxay waa datekii waa maxay dateka xagee bay taallaa paragraph ahaan waxaa loo sameeyey dhinaca midigta la geeyey somaali waxaana kala fiiri whom it may concern dixiisu iska jooga laba meel lama geeyo okay kan waa subjectigii ama wixii laga hadlayey oo la qorayay weeye wuxuu joogaa isaguna dixii iska joogaa paragraphska markaa u dhaadhacdo dixii bay joogaan somaali qoraalkuna waa 12 calibri body waa lagu qoray waka kuwan waa madmadow yihiin xoogaa kind regardiska markaad eegto bold un baa ku jira magaca qofka bolde administrator bolde baa laga dhigay khalaas kuwanna waa ciwaankii shirkadda iyo meesha laga helo magaceedii waxeedii waka waa diyaarsan tahay warqad diyaarsan waa documentiyada ka midka ah ee wordka u isticmaali kartay ka mid ma garanaysa documentiyada u isticmaali kartay marka hadda annaga waxba kama bedelayno waxaan rabnaa inaan print gareyno kan oo kale tusaale ahaan inaan print gareyso daabacad haddaad rabto inaad daabacdid qoraalka simply waxaad samaynaysaa waxaad tegaysaa office button print marka intaadan daabicin ka hor waxaad ku dhufanaysaa print preview si aad bal horta u hubisid waxa kanuu ma see buu ekaanayaa warqadda intaan la daabicin see buu ekaanayaa marka print preview waa ku dhufanaysaa ku dhufo hadda waka qoraalkeenu warqadda markii lagu daabaco saas uu soo baxaya wajida saas uu soo baxaya anada haddaan kiligareeyo ii weynaanaya xoogaa saad u aragtid u akhrisid halkanaa ku dhufanaysaa close print preview waa xiraysa waxyaala kalaa ku jira printy option margins orientation waa arki doonaa kuwaan waxay kala yihiin next page waxa hadda close dheh meesheedan ku noqonayna close kagaan okay haddaad rabto inaad daawacdo marka qoraalkan maxaa samaynaysaa simply waxaad tegaysaa office buttonkaad ku noqonaysaa printiga aad tegaysaa print waa kaa haddana print markaad tiri options kale uu ku siiyo options macnihi waxa weeye shaqooyin kale waxyaala kale hawlo kale ku jiray oo kuleeyahay kuwaan keed rabtaa adiga print preview baa rabtaa inaad samaysid quick print dhaqso ma rabtaa inaad print garaysid yeah or just select a printer kan option kaas ku siinay marka kana badanaa la doortaa printer naga tag ku noqon meeshaan print dheh print ku dhufo markaas waxa ku soo baxaya here dialog box kana ku soo baxaya print la yiraahdo soo wuxuu ku siinayaa option kale oo ka sugayo for example name-ka printerka wax ku daabacaysid waa kee kaas hadda noo dooran PDF writer halkan laga bedelaa marka kanaad ku dhufanaysaa dhag waxa ku soo baxay magacyadan kale tusaale ahaan haddaan rabno HPC 1200 kan inaanu ka dhigno printerka kan haddaan rabno inaan doorano macnaheedu kanaan ku dhufanaynaa saa noo soo booski magaci galay waxaa ku xiga oo kale samaynaysaa page range-ga ama tirada page-ka aad daabacaysa ma all pages baad daabacaysaa current page-ka hadda joogto keliya aad daabacaysaa mise waxaad daabacaysaa tiro page ah oo 2 page 3 page tusaale ahaan waxaan rabnaa page-ka haddii badan yihiin for example waxaan rabaa page-ka labaad ilaa slash-kaas gelinaysa page-ka shanaad oo kale laakiin hadda maadaama waxaanu haysan oo dhanba ay yihiin just hal page wuxuu iska joogay oo default ku ahaa markaan imanaynay sorry wuxuu iska ahaa all pageskaas u taagnaa marka hadda all pages okay tirada hadda halka page uun buu daabacaya ma doonayno qoraalka inaan daabacno laakiin simply okay baa ku dhufan darto inaad daabacdo printerkiina waa kugu xiran yahay computerka si la isugu xirayo hawlahaas waa
howlo kale oo dee markaas aad mar kale si kale inaad printer kugu xiran yahay way computerka markaasaad okay ga leedahay wuu daabacmaya marka haddii printer ku shaqeynayo waxyaalo kale jira oo hadda haddaan xirno waa kansalay meeshaydii aan kusoo noqonay office printer haddaa office button haddaa haddana ku noqoto printer nahno printer ku dhufano printerka noociisa waa noo dooran waa ka all pages okay baa iska dooran dhib ma laha halkan waxaa ku jira number of copies for example warqadaan aad rabtaa inaad 3 copy ka samayso halkan ka kordhinaysaa 3 copy iga dhig waaye warqadaan aan daabacayo 3 copy iga dhig bas collegekan iyo waxaan kaleeto waa iska default waa iska samaysan yihiin no problem waxba kama bedelina kuwan pages per sheet hal page weeye waxaa laga bedelay simple marka okay baad leedahay okay macnaheedu waxa weeye print garay waay marka 3 page ka dhig halka page okay hadda okay ma dhahayno waxaan leenahay cancel laakiin haddii aad ku tijaabi printer markaad wax qorqortid inaad daabacdid saas u daabacaysaa okay now kan waa one document waa noo furan yahay mid kale aan furaynaa waa isagana samaysan aan diyaariyey open waxaan toos u nimi khaanadaydii aan joognay wata my document is borrowed okay khaanadii documents ku dhex jirtaan ku dhex jirnaa because horaan u tegey markii hore aan tegey oo faylka hore aan ka furayay baan halkan tegey marka hadhowdu ku noqoto easily meeshii waa ku joogtaa waxa problem ma raadinaysa so hadda waxaan rabnaa letter this one aan dooranaynaa open baan waatan tanna muu fiiri warqadaan fiiri markaad tagto to meesha u socoto Windows Council okay size-ka qoraalka waxa laga bedelay to waa halka lagu qoray space-kana meesha ku jira space-kana marka tab baa la isticmaalaa kii la yiraahdo tab keyboard ku yaala dhinaca bidixda oo shishe laba falaaro isdhaafsan baa ku sawiran delete hadda space-ka ka tirtir waa kan iyo box meesha u socoto space yaa u dhaxeeya laakiin enter baa ku jirta meesha labadan waxa u dhaxeeya enter bas enter baa u dhaxaysa enter kala la sameeyay taariikhdii baa la qoray taariikhdu midig weeye qoraalkan waa midig yani waxaan ka wadaa sorry bidix waa sida caadiga sida ugu timaadid wordka markaad furto baa lagu qoray wax laxba la sameeyay male space yaa loo baxaysiiyey bas space yaa loo dhaxaysiiyey kadibna waxaa la bilaabay qoraalkii qofku uu qoranayay Soomaali horta waxa laga bedelo waa inteed bidix weeye paragraph markaad eegtid waa bidix space-kan halkan enter baa ku dhex jirta labadan paragraph dhexdooda enter baa ku samaysan paragraph saddexaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waxa u dhaxeeya enter kaliya waa saddexaad iyo kan afraad waxa u dhaxeeya enter bas baa ku jirta meesha saasay ku socotay ilaa meeshii kaandigaas la xirayay qofkii dirayay adresskiisii wixiisii iyaduna waa hal page halkana kala soconaysa hal page kaliya waaye waxaan qoraalkan hadda furnay oo qoran marka muhiimadda qoraalkan hadda uu kuu sheegayo waxa weeye oo kii hore uu kaga duwan yahay qoraalkan waxa la sameeyey oo fontiga size-kiisa ama laga bedelay ama formatting oo waxyaalo qurxisa iyo lagu sameeyay ma jiraan bold ma jiro xataa italic ma jiro underline ma jiro waxa ma jiraan waa la daabacay laga tape gareeyay waana la save gareeyay bas marka tan waxay ku tusaysaa macnaheedu wax badan uma baahnid hadaa rabtid inaad word wax ku qorto waxaad u baahantahay male wordkaad furaysaa warqadaadii qoraalkaagii baad qoranaysaa waxaa muhiim ah kaliya inaad styleka ama qaabka wax loo qoray aad garanayso oo aadan qoraalkii sanka iska gelin oo isku dhadhajin ee aad simply tu'dii meesha ku socotay halkaa ku qorto tu'dii halkaa ku qorto waa helaad garsan intaas waa tu'dii meesha ku socotay laylankan marka waxaa u dhaxeeya inter kaliya u dhaxeeya space kaa markii la qoray meesha ku socotay council surface inter baa la yiri bio box-kii la qoray inter meesha ku socotay London kadib inter laba jeer date-kii baa la qoray taariikhdii kadib inter laba jeer paragraph-kii baa la bilaabay ugu horreeyay kii labaad baa ku xijisay qoraalkaagii baa wadatay wakaa kuu socday markaa dhamaysay waxaa tiri inter kale can regards inter kale qofka magaciisa inter kale adresskii meesha ku socday inter kale khalaas posta code-kii wixii bas waaba dhamaatay sheekada marka qoraalka markaa dhamaysay maxaad samaynaysaa waa daabacanaysaa daabacadda maxaa xagee laga sameeyaa halkan laga sameeyaa waxaad tegeysaa office button-ka tegeysaa printer waxaad dul tegeysaa ikhtiyaaraadkan kale xaggaad u soconaysaa wakaa printer baa ku dhufanaysaa printerkii noociisa ayaad dooranaysaa magaca printerka dooranaysaa halkan laga bedelo kii hore ku celi kadib waxaad dooranaysaa inta page uu yahay maadaama hal page yahay dee page-kan waxba sheegi maayaan mar kale aanu baran doonaa current page iyo pageski iyo sida loo isticmaalo
ama siyadaba current page macnaheedu waxay page ka joogtid un kaliya markaa rabtid inaad daawacdo waxaa haystaa documenti badan 5 6 page ka kooban page-ka lixaad baad joogtaa kaa kaliya rabtaa inaad daawacdo kuwa kale ma rabtid inaad daawacdo kaas markaad tagtid oo cursor kuu jooga macnihii tagtid waxaan ka wadaa sida hadda u joogno kan screenka halkan saan joogno kii koowaad baanu joognaa waa ka hal page wuxuba saasoo kale current markaa okay adada current buu daawacaya kan pageskana waxaa loo isticmaalaa waan niri haddaan rabno pageka saddexaad ilaa pageka shanaad inaan ahno oo kale pageka saddexaad afraad iyo shanaad buu daawacaya saddexaad page buu noo daawacaya oo keliya page koowaad labaad buu ka tegaya pageka lixaadna buu ka tegaya hadduu 6 page ah all haddaad tirahdana waxa weeye all pages buu daawacaya halkana waxaan niri tirada inta copy aa rabtid documentiga aa kuu samaysan in laga sameeyo inta copy aa rabtid baa halkan ku dhufanaysa copy 3 copy hadda okay 4 ka dhig 5 ka dhig 6 ka dhig 6 copy baa rabtaa inaad ka samaysid 6 qof oo kala duwan baa rabtaa inaad u kala dig 6 xafiis oo kala duwan baa rabtaa documentiga inaad geysid 6 CV oo kala diyaarsatay CV-yada rabtaa inaad 6 xabo ka dhigatay si aad maaragtay 6 agency ugu kala geysid waxaasoo dhan maaragtay waa halkan aad copy ka samaynayso haddaad doontona hal xabo keliya hal xabo aad keyboardkan hal xabo waa ku qor xabad waa default mar walba hal xabo hal code buu ku soo haddaad doonto intaad printerka haddaad khadda iyo is leedahay yuusan kaa baabi'in intaad hal xabo copy samaysid ayaad photocopy-inaysaa waxaadna samaysaa inta badan oo tala ahaan hal copy marka hore daawac copyga akhri oo fiiri oo bal eeg pageska iyo qoraalkii inuu saxan yahay markaa kadib copy badan haddaad samayso because haddii aad intaad waxaa laga yaabaa qoraalkii aad qortay inuusan dhammaystirnayn ama ereyada wax ka khaldan yihiin ama oo markaad bannaanka u saarto oo fiirisid aad aragtid xarfo ka khaldan marka haddaad 10 page daabacdo haddii 10 page waa kaa khasaarayaan marka hal page daabac marka hore ama waxaan ka wadaa hal copy haddii hal page yahay qoraalku ugu qoran haddii 10 page yahay haddii 20 page yahay macnihiisu hal mar daabac marka hore marka hadda waxaan idhi okay haddaan ahno wuu daabacayaa haddaanan okay dhihinna close aan ahnana dee wuu ka noqonaya wakaa marka wax kale ma samayn hadda laba page baa ii furan somaad kana hadda ii furan iyo mid kale wordka hadday halkan u yaala wakaa meeshaan status barka la yiraahdo word calaamadda word baa dul tegaysaa labadan page baa ii furan garanaysa labadii aan furay way waa kan hadda markaan ku dhufto waa kii company-ga haddaan word ku noqdo wordka hoos haddaan taabto oo just cursorkan dul geeyey kii labaad waa kan marka laba documenti 3 documenti 4 documenti oo word ah baad hal mar furi kartaa kadibna documentiyadaas ayaad markaa maxaa la dhihi jiray ayaad halkan aad markaa uga kala wareegaysaa waad dul tegaysaa hadda laba way soo maaha okay mid saddexaad aan furno tusaale ahaan open halkan kuma jiraan soo maaha documents aan tago baro word aan tago kuwii casharadii aan samaynay casharka labaad soo maaha baan dooranayaa open baan leeyahay qoraalkii aan qornay way maanta dhow soo maaha waa document saddexaad oo aan furay okay laba page buu ka kooban yahay oo qoraal documenti aan kale oo aan furay wey soo maaragto marka haddaan word ku noqdo hadda hoos eego macna statuska waa maxay 3 documenti buu tusaa ii furan 3 documenti 1 2 3 sidoo markaan dul haabayo cursorka isagii buu keenayaa marka haddaan click iraahdana asaga ay soo baxaya ku noqo haddana kanaan rabaa geeska waa kan kana ay soo baxaya 3 documenti waa ii furan yihiin ma garanaysa homekaaga joog home baan joognay intaan soo maartay marka 10 documenti baad oo kala duwan oo magacyo kala duwan leh ayaad furaysaa kadibna halkan un baad uga kala wareegaysaa waxaa laga yaabaa kan inaad rabtid dhowr documenti oo aad rabtid qoraallo inaad u kala wareejisid ama maaragtay qoraal kan inta ka qaadid kan kala geysid so waa furanaysaa hal mar isna baa wada furaysaa 10 documenti waa furi kartaa 3 10 20 30 documenti waa wada furi kartaa dhib ma laha intaad doonto documenti baa furi kartaa halkaas status barka calaamadda word halkaa ayay ku nasanayaan marka hadba kaa joogto maahe kan kale ayaad u wareegaysaa just waa keli garanaysaa khalaas okay marka halkaas aan ku joojinaynaa casharka saddexaad simply wuxuu ahaa inaan tuso documentiyada noocyada kala duwan aad samaysan kartid iyo documentiska in waxaad u baahan tahay arrinta mar walba xoog baan saaraynay qoraal aan u baahanayn wax badanba home baad joogtaa simply just bold italian iyo waxaan paragraphs oo loo habeeyo kuwan waa haweenka loo yaqaano bulletskii iyo numberskii waa kuwan darta list oo kale magacyo iyo wax inaad taxdiid ama ayaa loo isticmaalaa iyo halkan oo aanu baranay just simply open key save as print baan ku darsanay
closena waa naqaanaa exitna waa naqaanaa khalaas newgaas waa new document oo word haddaarta inaad samaysid waa arki doonaa bas wax kale looma baahna intaas ayaan markaa caawa ku joojinayna cashirka saddexaad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noo ahaato cashirka afraad insha allahu tacaala waxaa maseef garanaya ka bax